بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. xalaqadan maanta waxaynu kaga hadlaynaa sunno ka mid ah sunanullaahi fii khalqih, sunnooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u jideeyey khalaa'iqiisa, khaasatan bani aadamka. sunnahaas oo ah in uu bani aadamku xanuunsado waa sunno ka mid ah sunanka ilaahay subxaanahu wa tacaala. wuxuu alle yidhi subxaanahu wa tacaala wanabluwakum bishari waalkhayri fitnatan wa ilaynaa turjacuun. waxaanu idinku imtixaami doonaa ayuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala, shar iyo khayrba ayaanu idinku imtixaami doonaa. marka xanuunka ay bani aadamku xanuunsadaan oo sunno ka mid ah sunanullaahi fii khalqih waxa uu yahay imtixaan ka mida imtixaamada uu ilaahay dadka ku imtixaamo, kuwaasoo ah shar iyo khayrba. sharkii oo uu ka mid yahay maalan xanuunku ama bukaanku, iyo khayrkii oo ay ka mid tahay sixada ama caafimaadka uu ilaahay bani aadamka siiyo. xanuunka ama bukaanka uu bani aadamku bukoodo waa midaan cidna seegin weeye. qofkii hani ahaa wuu bukoonaya, kii faqiir ahaa wuu bukoonaya, mid gaboobay iyo mid yar, dhadig iyo lab, mid haddii alla yidhaaho nebi mursala iyo ambiyada iyo rususha iyo saalixiinta, mid waliba wuu bukoodaa. marka waxaynu isweydiinaynaa maanta, bukoonka ama xanuunka uu qof waliba xanuunsanayo, nebigii iyo rasuulkii iyo saalixii iyo mid maxay ahayd ilaahay caabudaya midaan caabudaynin, gaalkii iyo mid walba, maxay tahay xikmadda ka dambaysa? number one. midda labaad, mayay jiraan wax fawaa'id ah ama nicmooyin ah oo addoonku markuu bukoodo oo uu ka heli karo xanuunka uu xanuunsaday, nicmooyin uu kala soo bixi karo ama faa'iidooyin uu ka faa'iidi karo ma jiraan? bal marka hore aan sheegna dad badan baa jira oo u haysta in uu xanuunku yahay cadho ilaahay, ama qofku markuu xanuunsado dadka qaar u malaynayaan inuu ilaahay necab yahay, sidaa darteed uu xanuunsaday. balse aanay arrintu sidaa ahayn, oo sidaynu sheegnay ambiyadii iyo rusushii iyo saalixiintii iyo sidiiqiintii kullu waxa weeye way bukoodeen oo waynu ognahay. nebiyullaahi ayuub calayhi salaam waynu ognahay inuu intaasoo sannadood bukay oo jidhkiisa meel uu xanuunkaasu dhaafay aanay jirin oo u fayow, ilaa marka laga reebo carabka iyo qalbiga. waxaynu ognahay oo kale rasuulkeennii calayhi afdalu salaatu wasalaam oo ah khayru khalqi illaahi ajmaciin, midka ugu khayr badan wax allaala wuxuu ilaahay abuuray oo dhan, malaa'ig iyo jin iyo insi iyo wax kasta, inuu xanuunsan jiray oo weliba isaga xanuunkiisu kaarkiisu uu labanlaab ahaa. marka aan ka jawaabna marka hore, maxay tahay xikmadda uu ilaahay sidaa u sameeyey inay dadku bukoodo? ilaahay baa inoo sheegay oo inooma u qarin. maalan wuxuu alle yidhi subxaanahu wa tacaala, axasiba annaasu an yatrukuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin. ilaahay wuxuu yidhi, ma waxay dadku u malaynayaan markay yidhaahaan alle waanu aaminay in sidaa lagu dhaafayo iyadoon la fitnaynin, iyadoon la imtixaamin, iyadoo aan maxay ahayd balaayo ama maxay ahayd ibtilo aanay la kulmin? dadkii idinka horreeyey waanu
ibtilaynay oo waanu imtixaanay oo waanu fitnaynay idinkana sidoo kale macnihii waa idin fitnaynayna si uu ilaahay u ogaado الصادقين ولا يعلمن الكاذبين si uu u ogaado kuwa ay iimaanka ay sheegeen uu ka dhab yahay iyo kuwa kale ee ay beenbeenta ka tahay iimaankaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmadihiisa baaliqa ah ka mid ah waxa uu dadka xanuunka ugu rido sidoo kale wuxuu alle yidhi ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين waxaanu idinku ibtilayn doonaa idinku imtixaami doonaa baqdin gaajo maal yaraan nafta oo baxda iyo cunto oo yaraata maalan laakiin qof kuwii sidaa ku sabra ee iimaankoodiina xijista sabrna la yimaada markay arrimahaas ku dhacaan xanuunka iyo kuwa aynu sheegnay wabashir الصابرين buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala u bishaaree macnihii raalligelin ilaahay ka raali yahay jannooyin ay ilaahay ka hantaan ugu bishaaree buu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaas darteed addoomuhu way xanuunsanayaan kii qaniga ahaa kii dawada helayay kii aan helaynin mid yaroo dhashay oo iminkas maxay ahayd ifka yimid mid gaboobay oo 90 jira cid walba way bukoonaysaa balse qofkii sunnaha rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyo shariicada islaamka raaca waxa laga yaabaa xanuunka inuu ka helo nicmooyin ilaahay ku qariyay oo ku aasay oo xanuunka ku dhex jira nicmooyinka iyagoo kooban waxa ka mid ah inuu ilaahay dunuubta kaga tirtiro bani aadamka marka uu qofku xanuunsado haddii uu ku sabro xanuunka midda labaad inuu ilaahay darajooyin ugu kordhiyo xaggiisa darajaatun min cindihi tabaaraka wa tacaala inuu ilaahay ugu kordhiyo addoonka ku sabra maxay ahayd ibtilooyinka ay ka mid yihiin xanuunku ama bukaanku waa midda saddexaade nicmada saddexaade waxa weeye addoon ilaahay caasiyey oo macsiyooyin falay ayaa wuxuu ilaahay rabaa subxaanahu wa tacaala in uu intaanu aakhiraba tegin ee ilaahay hortaagin inuu ka tirtiro ilaahay subxaanahu wa tacaala min fadlihi wa karamihi inuu ka tirtiro dunuubta muxuu markaa ilaahay samaynayaa tacjiilu cuquubati fi dunya cuquubadii uu dembigaa uu falay ciqaabtiisii uu aakhiro qofku ku mutaysan lahaa ayuu ifkan ugu soo hormarinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dabeetana aakhiro wuxuu ilaahay la kulmayaa sidaynu arki doonno addoonkaasi isaga oo aan kitaabkiisa wax dembiya ku qornayn arrimaha waxay noo sheegaya axaadiista soo socota ee uu ka mid yahay inuu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam yidhi maa min muslimin yusiibuhu adan min maradin famaa siwaahu ilaa xata allahu bihi sayi'aatihi kamaa taxutu ashajaru waraqaha wuxuu rasuulka alla yidhi sala allahu alayhi wasalam ma jiro qof muslim ah oo ay xanuun uu la kulmayo xanuunsanaya iyo wixii la mid ah oo aan ilaahay dunuubtiisa iyo sayi'aadkiisa iyo macaasidiisa uga daadinaynin sida ay dhirta caleentu uga daadato sidoo kale wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam maa yusiibu almuslima min hamin walaa xasanin walaa wasabin walaa nasabin walaa adan xata shawkata yushaakuha ilaa kafara allahu biha min khataayahu ma jiro qof muslim ah oo ay ku dhacdo murugo iyo warwar iyo tiiraanyo iyo maxay ahayd dhibaato soo gaadha xataa haddii ay tahay qodax mudda xanuunkeeda ha u yaraadee oo aanu ilaahay subxaanahu wa tacaala xanuunkaa kaga tirtirin dunuubtii uu galay qofkaasu ilaa xad uu ka gaadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi qofkii bani aadam ah qofkii mu'min ah baan lehay rag iyo dumarba ee ilaahay ku ibtilayo fii jasadihi wa fii maalihi wa fii waladih
ibtala allahu uu ku ibtileeyo ilaahay jirhkiisa inuu xanuun u keeno ama ibtilo dhinaca ubadkiisa kaga timaado ama ibtilo kaga timaado maalkiisii xataa yalqa allaha wamaa calayhi min khatii'a ilaa uu qofkaasu haddii uu ku sabro dhibaatadaa ubad jirhkiisa soo gaadhay xanuunka ama ubadkiisa xaggiisa kaga timid ama kaga timid maalkiisa haddii uu ku sabro oo iimaankiisa uu xejisto oo maxay ahayd qadaa iyo qadarka ilaahay isagoo rumaysan uu sidaa ku sabro wuxuu ilaahay la kulmayaa in shaa allah yowma alqiyaama wamaa calayhi min khatii'a isaga oo aan kitaabkiisa wax dembi ah ama wax khatii'a ah wax macsi ah oo ku qorani aanay jirin waa arrin weyn weeye oo ilaahay subxaanahu wa tacaala min juudihi wa karamih uu dadka mu'miniinta u fidiyey kuwa mu'miniinta ana kuwuu jecel yahayba kuwuu jecel yahay ayaa wuxuu inoo sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii uu qof jeclaado mu'mina ilaahay wuxuu ku imtixaamaa imtixaanada ay ka mid yihiin xanuunka iyo maxay ahayd kuwa aynu soo sheegnay siduu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa axaba allahu cabdan ibtalaahu liyagfira lahu dunuubah xataa idaa laqiyahu lam yakun calayhi khatii'a hadduu ilaahay qof jeclaado wuu ibtileeyaa wuu imtixaamaa wuxuu ku ridaa cudur faqiir buu ka dhigaa indhuhuu ka qaadaa iyo wixii la mida muxuu u samaynayaa ilaahay maxay tahay xikmadda ka dambaysa liyagfira lahu dunuubu ilaahay baa raba inuu dunuubtiisa ka tirtiro si uu ilaahay ula kulmo qofkaasu isaga oo aan kitaabkiisa wax khatii'a ama sayi'aatihi aanay ku qorayn taasu waa midda labaad aynu sheegnay nicmooyinka aynu sheegnay ta labaad maxaynu nidhi wuxuu ilaahay subxaanahu wuxuu addoonkaasu ka helayaa hadduu ku sabro ibtilooyinka ay ka mid yihiin xanuunku in uu qofkaa ilaahay darajooyin min cindihi uu u kordhiyo darajo kor u qaado darajo kale kor u qaado ilaa uu ka gaadho darajaat alculaa fii ridwaan illaahi tabaaraka wa tacaala caaisha radia allahu canha uma almu'miniin waxaa laga soo wariyey inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa min muslimin yushaaku shawkatan famaa fawqaha ilaa kutibat lahu biha daraja ma jiro qof muslima oo qodax yaroo mudday iyo wixii ka sarreeyaba ha ahaatee ay soo gaadho dhibaato ah oo ku sabro qofkaas oo aanu ilaahay darajooyin xaggiisa u kordhinin kamaa ruwiya fii saxiixi muslimin raximahu llah maalin maalmaha ka mida ayaa sacd ibnu abi waqaasin radia allahu canhu wuxuu yidhi sa'altu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaa rasuula allah ayu nnaasi ashaddu balaa'an sacad ibnu abi waqaas oo doonaya inuu ogaado imtixaanada uu isaguba marayo ila waxaynu nidhi cid waliba waa maraysaa imtixaanada uu marayo dadkii maray kuwa ugu imtixaan kulula ayaa wuxuu yidhi rasuulkii allow yaa ugu imtixaan kulul dadka oo dhan faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam alambiyaa ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الناس على قدر دينهم فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه من خطيئة رسولك ألا وحي وحا امتحان كل أنبياء يكوى كسوحك درجة أهان ilaa iyo kuwa lamid ah ee saalixiinta iyo sidiiqiinta iyo kamid yihiin qof walba waxa lagu imtixaamaya calaa qadari diinihi inta ay diintiisa iyo iimaankiisa iyo cibaadadiisu ay la eg tahay ayaa lagu imtixaamaya qofkii diintiisa iyo iimaankiisu kor u kacaan ay kordhaan imtixaankii ilaahay imtixaanayana uu sii xoogaystaa kii iimaankiisu dub u dhaco ee salaadii gaba ee haddii alla yidhaahdo jilca xaggii cibaadada ilaahay iimaankiisu shaki galo falciyaadu billaah thaquna diinu aw dacufa
diinuh baan leeyahay iimaankiisii mar hadduu hoos u dhacay ilaahayna imtixaanka wuu u yaraynayaa kuwa markaa uu imtixaanka ilaahay ku adkeeyay ee ku sii kordhay uu sii kordhinaya marka iimaankoodu kordhaba imtixaanku waa ku sii adkaanaya ilaa ay gaadhaan halkii nabiyullaahi ayuubkii aynu mithaalka u soo bixinay ee gaadhay heerkaynu ognahay imtixaanka ka gaadhay iyo ambiyada kale la mid ah iyo rususha ilaa uu addoonku dhex socdo bani aadamka isagoo dhex lugaynaya aanu jirin wax kitaabkiisa dembi ah oo ku sugan haba yaraatee sidoo kale wuxuu yidhi rasuulkeenu calayhi afdal salaatu wasalaam dadka ilaahay qaar ka mid a ayaa ilaahay wuxuu jeclaystaa in uu darajooyin u kordhiyo waxa ka sugnaatay oo looxul maxfuudka ilaahay ugu qoray beri hore in uu qofkaasu gaadho darajaati alculaa darajooyin aad u koreeya xagga ilaahay ka gaadho balse qofkaas camalkiisi gabo oo uu gaadhsiin kari waayo camalkiisii saalix ahaa gaadhsiin kari waayo darajada ilaahay la rabo muxuu samaynaya ilaahay siduu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yabtaliihi allah fii jasadihi wa fii waladihi wa fii maalihi faida sabara calaa dalik يبلغ هذا المنزلة التي سبقت له من عند الله عز وجل قفكاسو مركو ابتلاي إلهي أو حنون كان مثلا كردو كرون وحو كاني محايا هاي دايابيتي وحو كاني كانسر وحو كاني وضن حنون محايا هاي ويوحي كسيس الريبة أدون كاسو كصبره إلهي سبحانه وتعالى arrintii ka sugnaatay ilaahay looxul maxfuudka ku qorayd ee adoonkaas uu ku gaari waayay camalkiisa saalixa isagu uu isgaarsiin kari waayay iyadoo ilaahay u qoray isaga isgabay raxmatun min allahi tabaaraka wa tacaala wa min fadlihi ayuu adoonka kor ugu qaadayaa ibtilo uu ibtileeyay sabarkana ilaahay ku caawinaya allah inagu caawiyo sabarke si uu darajada u gaaro sidaas darteed ayaa waxa uu gaaray Abu Hurayra radiyallahu anhu ardaa arrimaha markuu ogaaday iyo kuwo kale oo ka badanba ayaa wuxuu yiri oo laga soo hadilay inuu yiri ma min maradin yusibuni ahabba ilayya min al-humma li'annaha tadkhulu fi kulli 'udwin minni wa inna allaha la yu'ti kulli 'udwin qistahu min al-ajr Abu Hurayra wuxuu yiri radiyallahu anhu ardaa ما حنون أن كتش على هاي حمدة متشرو معني حنون دي بكرة دورنا يا حنون أن كتش على هاي حمدة متشرو وايو حمدو حبيم والبا أو شركة كم ذا باركة كليها دجها عندها مال والبا ويجلس حمدو ده تنحبين كست أيقشوا إلى هاي سبحانه وتعالى وحوسيي هدي الله صبره أجر بالك جهليا حبين كسته ما هتشيل كورن حتى halkaasaynu casharka ku joojinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hay naga yeelo kuwii marka hore ogaada in ay tahay sunna min sunanillaahi fii khalqihi inuu bani aadamku bukoodo laa maxaala cid ka baxsanaysa aanay jirin haddii ambiyadii iyo rusushii ka baxsan waayeen oo qof waliba xanuunsanayo kii faqiirka ahaa iyo kii haniga ahaa kii yaraa kii dhashay ayaa indhala-aan ku dhalanaya macaan ku dhalanaya waynu ognahay cid ka baxsanaysaa ma jirto marka hore inaynu taa ogaano mar labaadkana inaynu ogaano sabirka oo waxaasoo dhan wanaagahoo dhan lagu helaya nicmooyinka aynu soo sheegnay iyo kuwaynu xalaqada dambe ku sheegi doono lagu helaya waxa weeye waa sabirka iyo cibaadada oo la kororsado oo la ogaado inuu imtixaankaasu min allahi tabaaraka wa tacaala yahay ilaahay la rabo qofka uu ku imtixaamayo maalan xanuunka in uu la rabo inuu darajooyin kor u qaado in uu danuubta ka maydho iyo inuu maalan ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkaa jecel yahay wallahu aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh